danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Jamaal Maxamed Xasan iyo qunsulka safaaradda Cali Maxamed Sheekh Cali Begeedi ayaa maanta booqasho ku imaaday xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab gaar ahaan xerada Dhagaxley iyagoo la kulmay mas'uuliyiinta hay'adda UNHCR iyo waliba hogaamiyaasha xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab ee Soomaalidu ku jiraan. Danjire Jamaal ayaa qaxootiga warbixin ka siiyay qaabka ay Soomaaliya iyo Kenya iyo UNHCR u qorsheeyeen in dalka dib loogu celiyo qaxootiga Soomaaliyeed ee go'aansaday inay laabtaan iyadoo aysan jirin dad qasab loogu celin doono Soomaaliya. dhinaca kale dadka ku nool xeryaha ayuu u sheegay inay ka fikiraan sidii ay ugu bixin lahaayeen noloshooda qaxootinimada oo ay dalkooda ugu laaban lahaayeen si ay uga qayb qaataan horumarinta dalkooda. Faraxsanahay sharafeeno inaan ku soo booqano xeryaha Dhadhaab markii labaad Ramadaantii gudaheeda. sababtan inuu ku yimid waxa weeye la socotaan bisha 6 waxay leeyihiin madaxweynaha Soomaaliya hadda maanta waa 27 marka sababtan u soo noqoneen wax kale maaha inaan balwadin ka warano meesha xaalku maraya wax badan aan maqasheen media ka maqasheen warbixino dawladdan ka soo baxay la socotaan bishii shanteedii dawladda Kenya waxay soo saartay qoraal leedahay waxaan xireynaa rabnaa xirno xeryaha qaxootiga ka hor iyo muddada ka bacdi wada hadal baa noo socday dawladda qaybaheeda kala duwan waad aragteen arrimihii media ayaa dhowr goor lagu soo celceliyay statements badan iyo qoraallo badan oo dawladda ka soo baxay Kenya ilaa intii dawladda Soomaaliya dawladda Kenya wada hadal baa u socday dhowr level gaaraya ilaa ugu dambeyntii madaxweynaha Kenya caasimad u diray uu yimi oo la kulmay madaxweynaha 2 maalmood State House-ka wada hadal ka socdeen waftiga Soomaalida iyo Kenya aakhirkiina qoraal ka soo baxay 8 bisha lixaad State House-ka saad la socotaan labada dawladood iyo hay'adda UNHCR oo u fududeynaysa waxaa jira heshiis dhexgeesooda heshiiskaas oo asalkiisu yahay in dadka Soomaalida qaxootiga waddanku ah ay ikhtiyaarkooda u noqon karaan statementii dawladda ka soo baxay ka bacdi markii labada madaxweyne shireen statementii ka soo baxday labada dawladood waxay taageertay go'aankii hore ugu heshiinay 2013 ahaa in dadka ikhtiyaarkooda u noqon karaan Soomaaliyana loogu sameyn karo nolol tan ka wanaagsan inta ka bacdi wada hadallada waan sii socdeen waxa yimi UNHCR-ta ninka madaxda ka ahaa halkan waddan ku yimi Nairobi saasoo kale say laftigiisa dawladda kula hadlay dad badan oo kala duwan oo adduunka ka socdaan saas iyaguna qayb bay ka qaateen sabtidii aan soo dhaafnay ayaa haddana waxa isku soo noqday labada dawladood commission-kii ashiray commission-kan waa kan saddex geesoodka ah labada wasiir arrimaha dibadda iyo qaybo kala duwan ka mid ah labada dawladood iyo hay'adda UNHCR ninka madaxda ka ah wasaaradda arrimaha dibadda Kenya lagu shiray mar labaad waxa la soo saaray qoraal ka hadlaya wixii lagu heshiiyay qoraalka ka hor 21 bisha ayaa haddana waxa shiray intaan wasiirada siiman technical team laba guddi oo ka socda labada dawladood iyo hay'adda UNHCR oo ka sii wada hadlay waxyaalaha wasiiradu ka hadli doonaan dhowr bari wada hadal socday lahaayeen sabtidii ayaa la soo gunaanaday wasaaradda arrimaha dibadda shirka lagu qabtay oo aragteen warbixinta wasiirka akhriyay qoraalkiina la soo saaray qoraalkaas marka laga soo bilaabay ciwaanka salaameysha ugu dambaysa waxa ku qoran in dadka Soomaalida Kenya jooga qaxootiga ay sidii hore loogu heshiiyay heshiiska saddex geesoodka loo fulinayo oo ah in dadkaas ikhtiyaarkooda ku noqonayaan waddankooda ku noqonayaan anagoo ixtiraamayna go'aanka dawladda Kenya tii waxaan rabnaa xeryaha xirno haddana aan dadkii khasab lagu celin oo dadkii xerada la xiraayo ayaan haddana la khasbayn marka heshiiska saas uu ahaa aan ku heshiinay dad badan oo marka waxa jira si loo ogaado dadka xerada ku nool heshiiskan u dhameeyay qoraalka soo baxay waxa ku qoran in dawladda Kenya hay'adda UNHCR ay qaadato hormuud ka noqoto in dadka xeryaha ku jira mar labaad dib loogu noqdo tiradooda meelaha kala yimaadeen cidii Soomaaliya ciidan Soomaali ahayn waxaan ka warqabnaa dad badan oo Soomaali ahayn ay ku nool yihiin wadamada dariska ka yimid ama dad Soomaali asalkooda laakiin waddan Kenya u dhashay marka waxyaalahaas oo dhan la kala saaro oo dadkii tiro rasmi soo baxay saad la socotaan mar baxba lagu sheegay mar waxa lagu oranayaa waxa jooga 500,000 mar waxa lagu oranayaa jooga 300,000 400,000 ku xarama tirada rasmiga dadka Soomaalida inaan ogaano arrintaas bilaabanaysa dhawaan
mudday soconaysaa 2 bilood 3 bilood ma garanay insha Allah inta soconayso waxaan ballantu tahay in October la isku soo noqdo marka waxa soo la soo sameeyay October mar labaad isku soo noqdaan wasiiradii iyo UN-ki la fiiriyo marka nambarka saxda ah xiriyaha ku jira iyo xaaladda meesha marayso iyo cidii diyaar ay noqoto meelaha ku noqonayaan noloshooda sidee tahay iyo waxyaalahaas warbixin guud oo tafatiran ayaa laga sugaya hay'adina keento wakiilada qaxootiga ayaa ka hadlay walaaca ay ku beertay warka ay warbaahinta sheegaysa in la xiri doono xiriyaha qaxootiga ee Dadaab dadka si qasaba lagu daabuli doono markii la yiri dawladda Kenya ay tiri waa la rarayaa oo haddana dadka Soomaalida ee la yiri waa la celinayaa meel hadda diyaarsan oo maxaan ku dhahay dadkii kalsooni buuxda ay siin karaan oo ay ku noqon karaan aysan jirin waan ognahay Soomaaliya xaaladda ka jirto ha noqoto Jubbaland ha noqoto Koonfur Galbeed ha noqoto Muqdisho wixii ka jiro habeen walba waan la soconnaa xaaladda meesha ay marayso jaanis la siiyo waqtiga diyaariin ay isdiiwaan galiyaan ninka diyaarana anagana naftarkeena liidaas maadaama ana garab baan u nahay qofka diyaara baloogada xitaa gudoomiyaal baan leenahay shaqaale dharaan leenahay dhalinyaraan leenahay ay inta baloogada dhacaan qof al qofka diyaar weey garabka in la soo qabto la diiwaan galiyo sharaf oo wanaag badan oo ku baxo laakiin arinta hadda media ku jirta dadka ay noo sheegaan subax markaa soo toosta VOA ugu horeysay afku wuxuu ku fariiday waxa Dadaab albaaba loo xirayaa dhinaca kale danjiraha iyo qusulka oo ay weheliyeen mas'uuliyiinta hay'adda UNHCR ayaa in ka badan 1000 qof u qaybiyay timir loogu talagalay inay ku afuraan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan dadka ku nool xerada Dhagaxley ayaa aad u soo dhaweeyay safiirka iyo wafdigiisa oo markii labaad inta lagu jiro bishan Ramadaan soo booqday xiriyahan qaxootiga ee Dadaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol raadiyaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed xiriyaha qaxootiga ee Dadaab